Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalkayga Firdowsi isku filan. Waa mar kale iyo new video. Beliis haddii ay tahay markii kuugu horeyso oo janaalka soo booqato, waxaan kaa codsanaa inaad subscribe gareyso, asxaabtaada kale la sii wadaagto. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Asxaabay soo dhawaada, aad iyo aad ayaan idin soo dhaweynayaa. Alxamdulillaah, ilaah ayay mahad oo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo. Waxaan rajeynaa idinkana inaa caafimaad qabtiin. Inta xanuunsan alla subxaana wa tacaala allaha caafiyo, inta dhimata alla subxaana wa tacaala allaha u naxariisto, inta safarka allaha u fududeeyo. Qof walba oo muraad lena muraadkiisa alla subxaana wa tacaala allah u sahlo. Isku soo noqod wanaagsan asxaabey. Aad iyo aad idinkaga mahad celinayaa saad mar walbaba aad igu xirantiin fiidiyowyada u sheer gareysaan, saad mar walbaba kommentiyada quruxda badan noogu soo qortaan. Waa idinkaga mahad celinayaa. Waxaan rajeynaa fiidiyogana inaad meel dheer gey doontaan insha allahu tacaala hadduu ilaahay sidii dad badan oo u baahan ay uga faa'iidaan insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. Mar kale waxaa idinka codsanaya wiilka habarta oo xanuunsanaya inay igu duceysaan inuu ilaahay caafimaad sariica siiyo. Inta awlaadka xanuunsanta alla subxaana wa tacaala allah u caafiyo. intii laga qaatay ilaahay gacmooda ku soo celiyo. intii xabsiyada ugu jiraan alla subxaana wa tacaala allah uga soo saaro. intaan awlaad haysanna ilaahay subxaana wa tacaala waxaa u weydiinayaa inuu awlaad baariyeeno qurratul cayna uu ku irsaaqo. ilaahay subxaana wa tacaala awlaadaha noo xifdiyo meel walba ay joogaan. asxaabey gurigan aad u jeedaan oo quruxda badan oo maasha allah, ilaahay subxaana wa tacaala qofkii sidaas u hagaagsato oo saas u sharaxatay, ilaahay subxaana wa tacaala arrimaheedu dhan ilaahay ha u fududeeyo horta aamiin u dhaha. gurigan aad u jeedaan waa beec. guriga maca alaabta waa la isku gadayaa. qofaas saas u wada hagaagsato oo saas u sharaxatay, laakiin qadarullah daruufa ku timid soo marka maanta waa beec. gurigaas aad u jeedaan wax ka maqan oo ilaahay abuurta ma jirto, walaa maacuun walaa daah walaa microwave. hal shay oo ilaahay abuurtay oo ka maqan malahan. just qofkii gurigaas gadato boorsadiisa oo kaliya ayuu la soo galayaa. jikadaas aad u jeedaan wixii qarash ku baxa alla subxaana wa tacaala gurigaas jikada qol caadiya ayadoo iska afuraha lagu wareejiyay gabadhaas. xataa xoodka aad u jeedaan iyo meesha alaabta lagu dhaqo iyo jikada waxaas aad u jeedaan oo dhan gabadhi lahayd ayadaa rakibatay. soo gurigaas soo ebera oo maran ayaa lagu wareejiyay. waa u jeedaan qolka jiifka musqul gudaha oo ku wataa oo maasha Allah uu ku leeyahay. soo marka waa alaab aad iyo aad u qurux badan. waa u jeedaan alaabtaas waa from maxaa la dhahaa Qabbani from Germany. waa u jeedeen fiidiyoga meesha lagu qabanayay. soo qofkii u baahan guriga maca alaabta inuu iskula wareego insha allahu tacaala, lambarka gabadha iskalahan hoos idinkugu soo qoraya hadduu ilaahay la xiriira. mala yacnina ha u wacinina walaalayaalo iyo maxaa la dhahaa su-aal qaldan. walaalaha ani isoo weydiinayo oo ani ileh wadankaa rabaa inaan soo dogo Firdowsi guri u baahana. horta midaan idiin sheegaya, Firdowsi guri ma kireyso, dalaal maahi, guryaha kama shaqeeyo. maxaa la dhahaa sina u ogaatiin horta youtube-kana waxaan u soo duubaya waxay tahay qof walaala inuu wax uun ka faa'iido ma ogi. anigu shaqo la'aan i hayso oo maxaa la dhahaa waa youtube soo galaya horta ma jirto. hooyo ilmo yaryar haysato ilmaheeda ku mashquulsanaa ahay. soo xataa waqtiga taleefanka ku qabata aanan haysanin. soo marka inaad fahmi doontiin aan rajeynaa. dhowr mar aan idiin sheegay wiilalaa jiro guryaha kireeyo, shaqadooda ay tahay idin caawinayo, elaboorka idinka keenayo, wax walbaba idin qabanayo insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo. ani dad dhifa oo caawiye way jirtaa oo ilaahay subxaana wa tacaala dartiis aan u caawiyey. soo marka maxaa la dhahaa laakiin hooyo ilmo yaryar haysataa ahay, mas-uuliyaddii aabba iyo hooyo dusha ka saaran tahay. soo marka walaalayaal oo fiidiyoyada aan soo galiyo horta dhageysta, markaas kadib waxaa rabtiin ii soo qora. laakiin guriga inaan soo guuraa rabaa, guriga u baahan wixii information waa soo weydiin kartaan youtube-ka waa idiin soo gelinaya. laakiin anigu gurina ma kireeyo, gurina ma ka shaqeeyo, qofna ma caawin karo markii runta laga hadlo. hooyo ilmo yaryar haysataa ahay. soomaalida mataqaanaa qofka haddii aad wax yar oo walaaltinimo ku caawiso inay ku kor socdaan ay jecel yihiin. walaalayaalow
aniga wixii informationa ilaahay dartiis waa idinkugu soo gudbinayaa anoona idinka abaal idinkaga rabin oo liwajhi laa u sadaqaysanayo xoogayga waa idin soo gudbinayaa yacni codkayga waa idin soo gudbinayaa amaa xoogayga qofna kuma caawin karo runta markaa ka hadlo marka gurigan waxaan soo dhigi doonaa hoos insha allahu tacaala tagamucul khaamis oo ku yaalaa kamaal iskuulka agtiisa oo ku yaalaa waa door alawal waaye 4 mukayfa gurigan ku xiran waa guri brown iyo asaa u jeedaanba maasha allah tabaaraka allah fiidiyowga saa uga jeediin iyo sida aragtidana waa guriga isleedaha oo aadan halaysoo tuso iyo halaysoo yeelay iyo aadan dhehaynin soo qofkii u baahan insha allahu tacaala qaybta commentiga ugu biin garayn doonaa biidnillaahi tacaala baari hadduu ilaah yiraahdo qofka aan rabin taleefankaas aan meesha soo dhigayo si iskula xiriirin qof gurigaas raba ma ogiye soo marka gurigan waa guri qurux badan waa ujeedaan la habeeyey qofaa juhdi badan iyo xoogeedaba galay soo adi haddaad u baahan tahay insha allahu tacaala lambarkaas la xiriir please channelkan haddaad iskaraab ku ahayn iskaraab garayso intaan fiidiyo lamida aan ku kulmayno waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wa ila liqaa